kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad naga dheehanaysaan waa telefishinka caalamiga ee Universal oon idinkala hadlayno stuudiyaha ku yaala magaalada London. daawadayaal waa barnaamij gaar ah iyo waraysi gaar oo ku saabsan guud ahaanba caafimaadka gaar ahaan waxaynu ka hadlaynaa cudurro iyagu asiiba xilliga ubadku ay yihiin xilliga ay gaareen iskuulka inay bilaabayaan. waxaa suurtagal noqotay inaan la sheekaysto Doctoressa Farax Bade oo ka tirsan qaybta caafimaadka NHS ee UK oo ka howlgasha magaalada London. marka hore waa soo dhaweynayaa Doctoressada Universal TV iyo waraysigan iyo fursadan qaaliga oo ay nasiyeen. waxaa jirta adduunyada marka la fiiriyo 12 canugba canug kamid ah waxa uu halis ugu jira ama khatar cudurka jadeecada xilliga ay gaaraan iskuulka inay bilaabaan. arrintaasi oo loo arkay inay tahay mid mudan ka hortageeda. haddaba Doctoressa Farax Bade waxaan weydiiyey arrinka isaga ahi ujeedka laga leeyahay ololihiisu muxuu yahay. Assalaamu calaykum aad baan u dhawahay ololadan waxa looga jeedaa in waalidiinta la xasuusiyo muhiimadda talaalkan la yiraahdo MMR-ku. MMR-ku wuxuu ka kooban yahay measles ama siday Soomaalidu yaqaanaan jadeecada, mumps oo isagana qumanka ah ama rubella oo isaguna busbuska ah. marka MMR talaalkaasi wuxuu ka kooban yahay talaalada guud ahaan ee carruurta la siiyo. marka waxaanu xasuusinaynaa inay waalidiintu ay eegaan hubsadaan ilmahoodii labadii irbadood ee talaalka ka kooban yahay inay qaateen. intanaynu koronaha ku jirnay dad badan baa ka habsaamay talaaladii waxay u maleeyeen inay GP-yadii xidhan yihiin ama balama aanan la samaynayn, laakiin GP-yadii way furan yihiin. diyaar baynu nahay inaynu dadka talaalino. marka waxaan wacdigelin lahaa waalidiinta inay hubsadaan hadday iloobeen ama ay waqti badan kasoo dhaaftay waqtigii talaalada dhib male, waxaad eegi kartaa ilmahaaga buug cas baa jirta oo waalidiinta oo dhan la siiyo markay ilmuhu dhasho. marka chapter baa isagana ku jira oo talaalka. marka waxaad ka baadhaysaan talaalada, waxaad eegaysaan waqtigii iyo talaalkii ilmihii muu qaatay. marka buuqa cas haddaanan haysan ama hadduu kaa halaabay toos baad ula hadli kartaa goobka caafimaadka GP-ga ama practice nurse-ka oo ilmahaaga recordkiisa laga arki karaa. marka adeega caafimaadka ee qaranka NHS-ka ayaa rabta inay dadkoo dhan Soomaalida iyo dadweynaha oo dhan ina la xasuusiyo inay talaalkaasi muhiim tahay. saddexdan cudur ubadka ku dhaca ama asiiba jadeecada iyo qumanka iyo busbuska maxay ka dhigan yihiin marka la fasiro iyaga laftooda. marka haddaynu jadeecada gaar u eegno ama measleska waa virus weeyaan sida koronaha oo kale. wuxuu ku gudbaa qofaca ama hindhisada. 10 qof ee aanan talaalnayn 9 baa qaadi karaa. ilmaha yar hadduu ku dhacana ilmahaasi aad buu u xanuunsan karaa. 10 maalmood buu u baahan yahay inuu iskuulka ka fadhiisto, ama hadduu qof waalidoo weyn oo aanan la talaalin cudurkaa qaado waa inuu 10 maalmood ay guriga joogaan. cudurkana wuxuu dadka ku saameeyaa dhagax xanuun, infectiono, dad baaba ku suuxi karaa, ku shubmi karaa. kolkolna markay ku sakaaraadaan maskaxdii baa barari karaa oo wayba ku dhiman karaan. marka carruurta aad buu ugu xun yahay cudurkaasi. talaalka owgiina cudurka inta badan Ingiriiska kumaba aragnaba, waa talaalka owgii. marka laakiin haddaynan las talaalin cudurkii uu kici karaa haddana oo kaysaskiibaa hore u kici karaa. cudurka labaad uu ka hortagana waa mumps ama qumanka siday Soomaalidu u yaqaanaan. isaguna waa cudur virusa oo si dhib yar u fidmi kara. marka muhiimaddu taasina waa inay la istalaalo. cudurka saddexaadna waa rubella ama ay Soomaalidu u yaqaanaan busbuska ama jadeeco jarmal baan saa ugu magacaabina arkay. isaguna waa cudur xasaasiyad carruurta inta badan ku saameeya. carruurtuna 7 bay inta badan xanuunsadaan kadibna ku bogsadaan, laakiin kolkol serious ama way ku sakaraadi karaan. cudurka busbuska ama jadeeco jarmal hadduu ku dhaco haweenka uurka leh khatar bay u noqon kartaa. marka bulshaday u xun tahay carruurta iyo dumarka uurka leh iyo dadka jilicda san ee kansarka ama daafacoodooda hoos u naaqusan tahay. wagaag marka la eego talaalka intee amaba heer intee la eg ayaa guul laga keeni karaa xagga talaalidda
cuduradan saddexdaah ee MMR ama dhinaca kale haddii laga hadlo xagga jadeecada iyo xagga qumanka iyo xagga busbuska? marka run ahaantii talaalkani waxaa la soo saaray 1968 ama 1968kii marka in badan baynu data ama cilmi baadhis uu ku jiray marka taasi waa mid marka dadku inay ka cabsoodaan maaha talabaadna 20 milyan oo case oo measles ayuu ka hortagay talaalkani 4,500 oo qof ayuu ka badbaadiyey inay ku dhintaan marka waa talaal aad u quwad weyn marka markaynu eegno dataha ama researchka cilmi baadhiska aynu u taataabano dadka 9% buu ka hortagaa cudurka measleska iyo rubellada 8% buu ka hortagaa cudurka mumpska marka waa inaad laakiin 2 toddobaad aad sugtid ilaa inta uu daafacaadaasi uu jirka uu soo galayo. marka laga hadlayo ka hortagga MMR maxaa diiradda loo saaraa ama culayska loo saaraa haddii heerka xanuunadani ay yar yihiin? ma la odhan karaa barnaamijka dhinaca horumarinta tallaalada degdega ee COVID-19ka amaba cudurka coronaviruska ayaa arrintaasi saameyn ku leedahay? waa run horta imika waa tan COVID-19 vaccinekii socda laakiin waxaa la arkay 10 sannadood ina soo dhaafay inay talaalka MMR-ku qaaditaanshadiisa inay hoos u dhacday marka waxoogaa khuraafaada ku jira dadkii may fahmin muhiimadda talaalkan hadday talaalka qaadashadiisana hadday in yar hoos u dhacdo caseski degdeg bay kor u kaci karaan already waanu ka hadalnay dhibaatada ay dadka ku abuurto caruurta yar way ku sakaraadi karaan uma wanaagsana haweenka uurka leh marka waxa muhiima oo aynu dadku xasuusinaynaa ololadan inay talaalkan ay wacdigelintan ay qaataan hadday waxoogaa questions ay haystaan dadku inay weydiiyaan GP-ga ama nurseska waa in lala hadlo dad badan baa talaaladii ka habsaamay intanaynu koronaha ku jirnay marka dadkaasaanu rabnaa inaynu wacdigelino. wagaag marka la eego heerka ay joogaan talaaladan MMR marka la fiiriyo iyo isbeddelka la arki karay sanad ama sanooyin arrintaa maxaad ka oran kartaa Doctores? horta talaaladaasi saanu sheegnay 10 sannadood hoos bay u dhaceen marka isbeddelkaasina caseskii buu kor u kicin karaa marka muhiimaddu I think waa in laga hadlo reasonka ay dadku ka cabsoon karaan dad badan baa ka warwarsan cudurka autismka ama aamuska ee caruurta ku dhaca laakiin cilmi baadhis badan baa la sameeyey marka talaalkani caruurta kuma saameyso autism aniguba inantaydii yareyd waan talaalay marka waa waxyaaba cilmi baadhis badan lagu sameeyey marka cilmi baadhiskana qofku hadduu rabo internetku ka baadhi karaa marka side effectkuna aad buu ugu yar yahay qofku hadduu talaalkan qaato badni xumad ama meeshii laga talaalay ayaa yar xanuuni karta laakiin side effect dhibaato qofku ku abuuraya ma jirto cudurkii uu ka hortegayana waa cudur aad u xun aynu sheegnay dadku ku sakaraadi karaan marka anigu waxaan oran lahaa dadku waa inay wacdigelinta qaataan oo insha Allah ay istalaalaan. marka laga hadlayo talaalka MMR ama jadeecada iyo qubanka iyo busbuska waxaa jira dad qaba fikir ah in ay ku jirto maadada jalatiinka oo kale arrintaas haddii ay jirto maxaa lagu bedeli karaya ama qaab kale oo loo dhigi karaa ma jira haddii arrintan ay jirto? may taasina waa arrin jirta MMR VaxPro waa talaal la gelatin baa ku jirta marka laakiin mid kaloo loogu bedeli kalaa jirta oo Priex la yiraahdo marka Priexkana waad ka dalban kartaa goobka caafimaadka sida GP-gaaga oo kale laakiin hore ugu sii sheeg inaad rabtid taa aanan gelatinka lahayn siday u dalbaan kolkol ma haystaan fridgeka kuma haystaan nooc kasta laakiin haddaad hore u dalbtid tidhaahdo anigu balan baan haystaa ilmahayga MMR-ka la siinin laakiin ma rabo taa gelatinka way ku dalbayaan ta aanan gelatinka lahayn marka mar kasta la hadal goobka caafimaadka way kuu samayn karaan taa. ugu dambaystii Doctoressa Farax Bade waxaa jira dadka na daawanaya iyo weliba kuwa aan na daawan inay hore u qabi kareen sideen ku heli karnaa
xog ama faahfaahin ku saabsan arrimahan tallaalada iyo ka hortagga cudurradan arrintaas maxaad ugu dambaystii uga jawaabi karaysaa waxaad booqataan website-ka nhs.uk/mmr waa nhs.uk/mmr aad baan kugu mahad celinayaa doctoresa farax bada adigoo ka tirsan waaxda caafimaadka ee UK fursaddan aanu isku wareysanay stuudiyaha London tan iyo kulan dambe anigii adiguba bulshada na daawanaysa iyo kuwa kaleba waxaan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته